waan islaam walaalayaal meel walba joogteen run ahaanti waxaa isoo celiyey xanaaq daraadeed ayaa isoo celisay marka ugu horeysay sababahan youtube-ka usoo galay waxay ahaan jirtay ninka drisla cabdi la yiraahdo oo iska haysan jiray Fuaad blue makeup yarka loo yaqaan iska haysan jiray oo mar walbaba clip walba uu magacaadii Fuaadka uu soo qaadan jiray oo uu dadka ku caawin jiray qaniisiin run ahaantii aad iyo aad ayaan u dareemi karaa Soomaalidan inay magacaadii aysan marnaba fahmaynin taasoo anakoona aanan rabin inaan ka dhaadhicino inayna fahmaan anakoo dareemayno dhaqan ahaanteena iyo sababahay inoo fahmaynin ba haddana waxaan jeclaan lahayn inay ammaanku iska keensiiyaan ayaan aada u jeclaan lahayn runtii qolada youtube-leyda markay ka hadlaan dadka faraxsan miseba qaniisiin sida lagu sheego views aada iyo aada u fara badan ayay ka helaan sababta ay uga helaanna waxay tahay dhalinyaro badan waxaa jirta ku raaxaysto hadalahaas miseba entertainment ku ah badidoodana markay arkaan qof amaba iska jiljilacsan ama sida gabdhaha u labisan ama sida gabdhaha u xaragooda waxay la xiriireen youtube-leyda caamanka ah siday markaa iyaga ay ugu soo hadlaan runtii yarkaa Munir la yiraahdo waan arki jiray weligay ma daawanin caaba iga horeysay ma daawanin sababtan caawna u daawada waxay tahay inuu ka hadlayo dadka faraxsan waxaa la yiraahdaa taas oo kale waxaan arkayay clip aad ku tiraahday dadkan dacweeya youtube-kii waxyaalahaas waa laga saaraya dad badan ha dacweyso runtii aniga hadda maanta haddii ay 100,000 oo qof oo Soomaali isoo dacweyso oo la yiraahdo youtube-ka laga xiro ligama xiraayo dadkii qalad bay ka faahsan yihiin youtube-ka haddii 100,000 oo qof intay 100,000 maxaa 1 milyan oo qof haddii maanta intay youtube u dacwooto oo la dhaho ninka ha laga saaro youtube lagama yaabo in laga saaro youtube sababtay tahay waxaa la baarayaa hadalaha aan ku hadlo qaabka aniga aan arrimaheeda u soo gudbiyo marka waxaa la isku barbar dhigayaa dadkan dacwoonaya iyo sababaha iga dacwoonayaan marka ayada waxay hadday fahmaan dadkan sababta iga dacwoonayaan sababto ay tahay in aniga aan dadka faraxsanahay mise qaniisiin sida lagu sheego ay ayakana garanayaan Soomaali haddaan nahay homophobia inay aada iyo aada ugu badan tahay aniga ayaa garab la siinaya anaa garabkayga la taagnaanaya 100,000 mise 1 milyan oo soo dacwooto garabkooda lama istaaga horta xornimada aan ku leenahay waaye shacab weynada dunida laakiinse maanta Muniro waxaan arkayay inay 419,000 oo subscribe aan leedahay aniga kali haddaan ku dacweeyo maanta youtube-kaas waa lagaa saaraya xoogaas ayaan ku leenahay baraha bulshada iyo meelaha xorka laga yahay youtube-kaada arkaysana dad badan oo shaar waxaa ku ah oo dadka faraxsan haddii maanta aan dacwoodo oo aan aniga kali haddaan dacwoodo iska dhaaf intaan 10 qof aan garabkooda intay istaagaan ila dacwoodaan youtube-ka berita lagaa saaraya marka walaal irsaaqad baa kaa soo gashaa meesha ayada nin walbaba youtube horta wuxuu usoo galay aniga waxaan usoo galay inaan dadkayga aan u dacwoodo dadka aniga lamid inaan u dacwoodo dadka meelaha lagu haysto oo la caaynayo inaan magacaadi iska dhiciyo miseba ka dhiciyo dadka aan hadli karin misena aan fahansiiyo dadkeena Soomaalidu inaan nahay anaka dad aada iyo aada u dhibaatoosan waxaan ugu liidanaa minority-ga aan ugu liidanaa inta ugu dhibaato badan adduunyada ayaan aada iyo aada ugu liidanaa marka ayada haddii kor loo kaco waxaa waaye ilmaha yaroo la xoogo haweenka
adiga dadka midgaanka lagu caayo waxyaalahaas waa lasii kala sareeyaa. anaga aada iyo aad anaga maba ku jirno buuga haddii Soomaali nahay inay naloo hadlo mise naloo dagaaltamo. taas anaga nafsi ahaanteena ayaana looga baahan yahay in aan isku istaagno aan isku hadalno mise aan usoo dagaaltamno xaqeena mise aan soo dhacsano. anaga nafsad ahaanteeda ayaana looga baahan yahay. marka walaalo anaga ma lihin ina taageer ma lihin marnaba ina fahanna marnaba kuma lihin. waxaad adiga aaminsan tahay iska aaminsanaa, balse ammaan ina sii walaalo. yarka adiga aad mar walba aad YouTube dadkaas aad baraha bulshada aad soo dhigayso oo YouTube aad soo gelinayso, nafsadooda ayaa halis geli karta. ya mid waalan oo magacaadi oo asagaba ka dhacday oo moodayo inuu janno ku tagi doono baa intaa laga yaabo inuu qori iska soo qaato xabad oo qofka asagoo wadada marayso xabadda iskaga qabto. marka adiga waxaad nafsadooda ayaad halis gelinaysaa. adigana waxaad leedahay lacag ku raadiyo ku shactira intaad meesha kusoo fadhiisata aad iska qoslaysaayo waxay kaa tahay entertainment ahaan. dadka commentiga bixinayana oo markaa ama keep going kuleeyahay dadka naga dhici kuleeyihiinna ya dantaada ma garanayaan. marka saaxib I'm gonna warn you I'm gonna warn you. anigana ha iga soo hadlin views ma baahni marnaba ha isoo aan bixinin. ya ha iga soo hadlin hana iisoo jawaabin. haddaa iisoo jawaabtana magacayga ha soo qaadin sababta aniga viewska uguma raadinayo. laakiinse saaxib haddii aad waxaad wada aad iska dhaafi wayso oo dadkan faraxsan aad wadadooda dhaafi wayso, fadlan iga gaarsiiya Muniir kalibkan inuu arko. YouTube-ka anaa kaa xiray beerkuuma sheega. awooddaas waan leeyahay, ilaahayna na siiyo. inkastoona Soomaaliya aan ku lahayn awooddaas, waxaan ku leenahay shacabweynada adduunweynada kale aan ku leenahay. marka I'm just giving a warning. intaasana ku ekaanaya part 2 part 3 part 4 aan arkaya. part 5 waxaa laga yaabaa inay clipkan kusoo gaareen. 6 haddaan arko saaxib hawada kaa baxayso. waan islaamada leer meel ba joogto. Bye till next time.